mashruuca kobcinta ganacsiga shaqo abuurka iyo habnololeedka ee geel ee maalgelisayada USAID waxa uu labadii sano u dambeeyay ka shaqeynayay aaga tamarta ee Soomaaliland. Geel waxa uu wasaaradda kala shaqeysay shirkadaha gaarka loo leeyahay kor u qaadka badqabka aaga korontada, xoojinta isticmaalka tamarta dabiiciga iyo dhiirigelinta dhalinyarada gaar ahaan hablaha bartay cilmiga tamarta. barnaamijka haweenka iyo tamarta ee geel waxa uu qabtaa tababaro iyo seminaaro kor loogu qaaday aqoonta iyo xirfadda hablaha bartay cilmiga tamarta. Mashruucu waxa uu sidoo kale ka caawiyaa hablaha fursado ay kula kulmi lahaayeen dhammaan daneeyayaasha ka shaqeeya aaga tamarta Soomaaliland, hay'adaha ay ka mid yihiin hay'adaha caalamiga ah, shirkadaha korontada iyo wasaaradda. ka qaybgalka haweenka ee fiilkan engineering-ka waxaan qabaa ka fikir ahaan inay aad iyo aad aan u soo dhaweynayno sababtoo ah waqtigan iminka aan taaganahay waa waqtiga ugu habboon ee uu dalkeenu u baahan yahay inay haweenku galaan qaybta engineering-ka ee energy-ga. habluhu fiilku way ku yar yihiin berigii hore dee maba jirinba hablo meesha imanaya oo engineering bar total maba jirinba. haddase laakiin hablaha engineering-ku tiradoodu ha koobnaato. tirada hore aan hayno waxa weeye waa 15 bay ahaayeen aan gobolada u kala dirnay. 15 ka hablood nooc walba isku jira arday degree iyo arday master way isku jireen. waa dad aqoontoodu dhisan tahay aan ku soo dhaweynayno inay fiilkaasi ka mid noqdaan. magacaygu waa Caawa Mukhtaar Cali waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa kulliyadda engineering-ka gaar ahaan electrical and electronic engineering. waxaan ka mid ahay hablaha ka qayb qaatay barnaamijka haweenka iyo tamarta ee ay qabato mashruuca geel. barnaamijkan oo ah mid loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo hablaha barta tamarta. caqabadaha ugu badan ee naga soo maray waxay ahaayeen inan kastoo naga mid ahayd waxay jecleedeen waxyaabahan ay 5 sano dhiganaysay inay iyagoo caadi oo la taaban kara ay aragto. taasina may suurto gelin waayo sababtoo shirkaduhu way adagtahay in marka ugu horeeya ku aqbalaan inay adigoo inaad engineer tahay oo dadkeenu wali lama qabsanin hablaha engineering-ka dhigta. challenge-ka labaadna wuxuu ahaa inaanay shirkaduhu ku ogolaanaynin inaad hesho internship iyo fara badan amba training-no oo meeshooda iyo qalabkooda ay kugu aamineen adoo inana. waxyaabahan ka faa'iidnay barnaamijka waxaa ka mid ahaa inay nagu tababareen badqabka qofku markuu ka shaqeynayo korontada iyagoo talooyin fara badan naga siiyay qalabka la xiranayo iyo maryaha ugu habboon ee safety-ga la xiran karo. waxaa kaloo ka faa'iidnay inaan barano sida loo design gareeyo solarta iyo sida loogu sameeyo installation amba loo rakibo. sidoo kale waxaan ka baranay muddadii aan ku jirnay barnaamijkan communication skills-ka, report writing-ka iyo waxyaabo badan oo kor u qaaday aqoonteedii.